Qisadani waxay ku dhacday wiil waxa uu yidhi wiilkani waxaan ku jiray waqtigii qaangaarka ama dhallinyaranimada. Waxaan aad u jeclaan jiray bannaanka waan necbanaan jiray inaan guriga joogo. Ballanba ballan ayay ii dhiibi jirtay. Waxaan ku soo laaban jiray guriga waqti dambe. Hooyaday aad ayay igu qaylin jirtay. Waana dhibsan jiray hadalkeeda. Ayadana walwal iyo hurdo la'aan ayaa ku dhici jirtay. Anigana waxaan iska ilaalin jiray inaan guriga ku laabto ilaa ay hooyaday hurdo. Waxay gaartay heer ay iska seexato, laakiin warqad ayay ii qori jirtay oo iigu dhejin jirtay kushiinka hortiisa oo ay ku qoran tahay cuntada meesha ay ii taalo iyo nooca ay tahay. Waxaan saas ku socdaba habeenkiina iska wareego, maalinkiina iska hurdo. Heer waxay gaartay hooyaday xataa in ay warqadda igu soo qorto dharka kaa wasakha ah ii soo dhig bannaanka si aan kuugu dhaqo subaxii. Wuxuu dhahay habeenkii dambe ayaan waqti hore guriga ku soo laabtay, mise waxaa ii dhegsan warqad aad in laygu baahan yahay ay ku qoran tahay, laakiin waqti aan ku sii akhriyo maanan haysan. Hurdada i haysa darteeda bannaanka ayaana ka soo casheeyay oo cunto uma baahnayn. Sariirta ayaan si toosa u tagay aniga oo aanan akhrin wax ku qoran warqadda hurdada i haysa darteeda. Waxaan hurdaba subaxii ayaa waxaa ii soo galay aabbahay oo ooynaya. Hurdadii ayuu iga kiciyey, misena wuxuu i dhahay hooyadaa way dhimatay, ilaahay ha u naxariisto. Ilaa laga duugayeyna waan ooynayay waana ku dhaganaa, laakiin maxay ii taraysaa markay dhimatay kadib oohin. Waxaan ku soo laabtay gurigii galabkii markii la duugay kadib waxaan ku aruuray sariirtii murugo iyo naxdin iyo shalayto. Laakiin si degdeg ah ayaa waxaa iigu soo dhacday warqaddii aan ka seexday xalay aniga oo aanan akhrin hurdada i haysa darteeda inaan akhriyo. Waxaan soo aaday kushiinkii, waxaan soo qabtay warqaddii waana akhriyay. Waxaana ku qornaa hadal ka duwan hadaladii hore oo ay hooyadaydu igu leedahay hooyo guriga haddaa ku soo laabato i kici, waayo waxaan dareemayaa xanuun si aad isbitaal igu qaado. Oohin iyo murugo aan xad lahayn ayaan dareemay. Waalidku waxay nagu leeyihiin ixsaan. Ka fiirso sida aad waalidkaaga ula dhaqmayso. Haddii aad nasiib u yeelatay inuu ku soo gaaro muuqaalkani, walaal ha ka gudbin adigoonan sheer garayn oo gaarsiinin asxaabtaada kale si ay ugu cibro qaataan dhalinteena da'da yar iyo qof walba oo waalidkiisa uu nool yahay si ay ugu noqoto mid uu ku cibro qaato. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.